caawa talyaaniga iyo turkiga runtii turkiga waa niman aad u khatar badan runtii labada jeer bay meel fiican ka gaareen tartamada oo ay ku jireen koobkii adduunka 2002 iyo koobkii kale Euro 2008 iyo CG iyo caawa rag badan baa ku jira meeshan inaba aanu caadi ahayn runtii turkiga waa khatar badan yahay runtii iyo okay marka waa kayo caawa Italia isna waxa weeyaan caawa isaguna waa adag wallahi turkiga waa dhisan yahay wallahi hakan Janaglu iyo xataa ciidood baan arkaya ragii waa ka Burug Yilmaz oo kale iyo wallahi Italy wallahi waa diyaarsan yahay runtii isagu qudhiisa turkiga weeyaan kuwa ka waligo turkiga ma badin Talyaaniga wana waxooga aad bay isu dhow yihiin runtii oo ay Soomaalidu aad u garanayaan badba dhex marta labada dhinac runtii oo u dhaxaysa Talyaaniga iyo turkiga iyo Barardi Talyaaniga runtii dadku aad uma wada sheegayaan laakiin Talyaanigu aad iyo aad buu khatar badan yahay Talyaaniga runtii dadku aad uma wada tilmaamayaan oo dadku runtii yani Talyaanigu runtii aad bay u yasayaan balse aad buu Talyaaniga u xariifsan yahay runtii waxa weeyaan waa niman ma taqaana waka iyo turkiga والله habeen bay tahay runtii laba wadan oo weyn ayaa caawa halkan isku haya kolley turkiga waligi kama badin wadanka kan Talyaaniga caawan arki doona wixii ay sameeyaan bal waa yahay markan turkiga waa kan runtii turkiga aad buu khatar badan yahay xusuusanadii 2002 turkiga waxay wacdara ka dhigeen ciyaarihii koobka adduunka lagu qabanayay Korea iyo Japan oo ay koob ku qaadeen wadankii Brazil sanadkaas turkiga wuxuu gaaray semi final hatta waxay gaareen Euro 2008 semi final bay gaareen marka turkigu ajiib weeyaan waa niman aad u khatar badan caawa turkiga kale kicker ayaa goolka ku jira waa isaguna khatar badan runtii baryaan ciyaartooyga turkigu caalamka bay ka ciyaaraan waa rag aad loo wada yaqaan weeyaan bay noqdeen runtii turkiga runtii oo wadan lama ka say ma ahan baryaan Domenico Berardi Italians iyaga iska dhaliya goal Italia won turkiga ever Demiral bay iska dhaliya laacibka Juventus hadiyada UC kooxda Talyaaniga turkiga waa lagu bilaabay goolka Italia goolkii ugu horeeyay Euro wuxuu noqday sanadkan goal armay gool balawada waayaba marka Euro gool lagu furo goolash waa la way karaya dhibkiisu iska badan yahay Italia gool bay heleen ugu dambeyntii meel fiican ayuu kubaddu ka qaatay ciyaartooyga Domenico Berardi waa u gambiyay kadibna kubaddu hadduu dhaafin lahaa ninka ka dhaafi lahayd Demiral asaga waxa dhalin lahaa Immobile ayaa dhalin lahaa Immobile waa dilinta ku jiray garaaxa si fiican ayuu umad u dhaafay ninka la yiraahdo Berardi still Barella still Italia Insigne Lorenzo afkore goolka Italia still yes Italia Domenico no Immobile Ciro Italia laba gool turkiga ever Immobile waa goolkiisa ugu horeeyay Everton caalamiya waa ninka sanadkan Talyaaniga haystaan waa ninka indhaha waa Italy sanadka kan waa ninka sanadka hor ku garaacay goolinta Yurub oo dhan Ronaldo iyo Messi waa Ciro Immobile waa ninka sanadka Italy wato Italy waa qabsaday garoonka habeenku laba gool buu ku hogaaminaya Master Ciro Immobile nin caadi ma aha isaga bay doonayaan Allah meel fiican Lorenzo Insigne yes Italia sada Italia u qubay caawa turkiga 3 gool buu ku garaacaya Lorenzo Insigne habeenku Italia waa raaxaystay